faraha dadaalka juhdiga badan uu ku bixinayo mar walba sida mujtamaca Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa wax anfaca haddii ahaan lahayd cilmi iyo haddii ahaan lahayd baraarujin kale intuba mar walba wuxuu ka qayb qaataa sheekha barnaamijyada noocan oo kale aad buu uga qayb qaataa marka waxaan leenahay amthaalkiisa oo kale Allah noo badiyo jazaahu Allahu khayral jazaa haddan waxaan u yeerayaa gudoomiyaha jaamacadda Jazeera Prof Salaad Ibrahim Fiidow labadan program maanta aan u fadhina ujeedkiisa iyo ahdaafta ka dambaysa inuu noo sharaxo noo sheego ayaan insha Allah ku daafuraynaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحان مركو أهريسو هاد علنايا دمان مرت الشرف كان قلصو قيب قشي oo ay ugu horeeyaan madaxda wasaaradda tarbiyada wasaaradda tacliim al-aali saasoo kale wasaaradda caafimaadka sidoo kale muxuu ururada bulshada oo shuruuciyay nagala joogaan sidoo kale dhakhaatiirta jaamacadaha oo nagala joogaan jaamacadda City Simad Jamhuuriya Soomaaliya dhammaan plasma iyo jaamacadaha kale nagala joogo ayaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ويرستي يوقتي قدر مهم كأي نص ضعفين دمان وحنو مهد علنايا أنت كسوق يبقى شغلنا موقف كستا يكون فرديان يمارتي جاي كستا يهايان آدي أيان ومهد علنايا وحنا آدي ومهد علنا أرضية جامعة هذا أو يجنا قيب تودا كسوق يبقى لين أيان آدي ومهد علنايا وحن آدي ومهد علنا إسبيتال كان يردميل هوسبيتال ونوفيديين inaan gogashaan isku aragno aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dhakhaatiirtooda saas oo kale isbitaalka muxuu ahaa Jazeera Specialist Hospital oo asagana qayb ka ah barnaamijkan inuu najaxo ayaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhammaan dhakhaatiirta iyo muxuu ahaa marti sharafka dhammaantiin aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaynaa waqtiga oo dib u naga dhacayna waa mar labaad ayaan idinka raali garaynayaa haddii aan u soo noqdo jaamacadda Jazeera ilaahay mahadiis waxay aasaasantay 2010kii waxaa aasaasay rag macallimiin ka soo ahay jaamacadda ummadda iyo jaamacado kale iyo jaamacadaha waddanka markaa ka jiray sida jaamacadda Muqdisho ayaa aasaasay ilaahay mahadiis muxuu ahay undergraduate-kii waa laga qalin jibiyay waa lagu najaxay waxay leedahay 9 kuliyadood ayay leedahay iyo qaybaheeda kale muxuu ahay waxa dhigo macallimiin aad iyo aad u fara badan oo aad iyo aad isugu dayay inay ilaaliyaan tayada iyo baahida mujtamaca labadaas aad u ilaaliyay ayaa macallimiinka jaamacadda waxay qayb ka tahay rajo soo celinta mujtamaca Soomaaliyeed oo muddo dheer dagaal ku jiray ayay waxay ka tahay qayb kadib annaga oo baahida loo qabo waxbarashada markastaba isku dayaynay inaan daboolno ayaa haddana waxaan hadda isku daynay in aanu maaragtay barnaamijyo kale oo maaragtay programs kale oo waxbarashada ah inaan maanta halkan ka furno labada barnaamij oo aan rabno inaan furno oo laba barnaamij oo waaweyn ah barnaamijka u horeeyo waa postgraduate ophthalmology ah oo aanu ka kaashanayno dhakhaatiirta takhasuska u leh ee Soomaaliyeed iyo kuwa kale waxa aad noogu faahfaahin doono dhakhtarka Dr. Cabdisamad ayaa aad arrintaas noogu faahfaahin doono saasoo kale waxaan rabnaa inaan maanta daha ka qaadno postgraduate oo aanu la yeelanay heshiis jaamacadda Global Science University iyo anaga aan la yeelanay Telemanic Unitino University oo distance learning jaamacaddaas waxay leedahay takhasusad fara badan links fara badan ay jaamacadda leedahay isagana waxa noo faahfaahin doono Mr. Farxaan ayaa noo faahfaahin doona halkan imaan doona marka waxaan mar labaad aan u mahad celinayaa dadka sharafta lahaa ee naga soo qayb galay marti sharafka iyo xoogaaga dib u dhaca nagu yimid ayaan idinkaaga cudur daaraynaa jaamacadda hore waxay u lahayd barnaamij ICDL la yiraahdo oo online
Center of Examination International Computer Driving License oo aan u ahayn center oo exams aan u ahayn. Sidoo kale muxuu ahaa barnaamijkani wuxuu markaa barnaamijyadaasi ayuu kaabi doonaa oo ilaahay mahadiisa laga aflaxay oo shahaadooyinkii laga qaatay barnaamijkaasi muddo aan soo wadnay baahi badanna ay u qabto mujtamaceena Soomaaliyeed laakiin aan aad loo fahmin in laga faa'iideysto. waxaan ku soo koobayaa maanta in aan maanta daah qaadnay labadaas barnaamij oo aan ku soo dhaweynayno ardadeena Soomaaliyeed ee baahida u qabo ayaan leenahay marxaba mar labaad iyo mar saddexaad waxaan maaragtay u mahad celinayaa marti sharafta nagala soo qayb gashay oo madaxda dawladda ay ugu horeeyaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاسوحها بروسلات إبراهيم فيدو قدوميها جامعة الجزيرة وبرامج إنه دافوري كان هذا لبدي برنامج جامعة الجزيرة ما أنت كان أن أجوجنه أن ربنا إن ده كقادنا متكمل ومتكل كان كموضة وبوست graduate of ophthalmology متكل وده متكل كان كموضة جامعة داس ليرة هذا ينتونو أو كتالة تليانية أو له لينك جامعة بدن أو كيا لهدون كميدا يسدو كله جامعة الجزيرة أو قيبتان كوفرات وكيل ونقد دونتا هي جامعة global science أو كتالة قالكايو أيضا وكيل وهم حوها قيبها سوقوي مركا برامج ككواد ophthalmology فكر كيسن أولها دكتور عبد السمد محوها حسن هاي هذا محوها برامج كاس واحد بدن كدياري أما كوذا لينك بدن محوها برامج كان وسو سمي أيام ربعنا كسو دوي هل كان سي وبرامج أوفا فاهيو ophthalmology رأربنا أو سدح سنة لو قادنا مصر كأنه نو بالبلاري ونوفا فاهي إن شاء الله فلتفضل مشكورا دكتور عبد السمد حسن هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد مدحدا وزارة عافماتك وزارة التعليم كسعودة دومياش جامعة كلا دون civil society لغاتيرتا يوم مؤسسة جامعة الجزيرة يقدميها جامعة الجزيرة أنت بغى إنسلام هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما أنت وحن سكون نمت sida ay u sheegeen gudoomiyaha iyo xaamudba in jaamacadda Jasiira ay rabto inay bilowdo post graduate training ama han noqdaan long distance iyo indaha طبعا in jaamacadda Jasiira ay bilowdo muddo dheer laga soo shaqeeyay inta dheer inay darteeda maanta waxaan ku guuleysanay inaan dah furno in post graduate training of ophthalmology in la furo assessmentigaas wuxuu base u yahay annaga dhaqaatiirta indaha xageeyaga طبعا ويرنا احترام هينو وحنا هريا لنا وشقة عاد فربلا شقة سواء جاري سنة 1.2 مليون 1.2% لا بقولي لبعضهم كون جاري وندلعنا عن سيرفيس هيسنين human resource هيسنين اي كير سيرفيسنا عن هيسن سي مشروع كهرتك يندلعانته يا أرجلانت اللوجو يريس سي مشروع اللوجو هرتجا اسكو فر بدنا جرتي أنا عن دكتور علي باشا iyo groupkayga indaha aan sameeyno oo ah in isku yimaado oo dadkii qaar la diro dibadaha loo diro wax ugaan ku maqan wax Kenya ku maqan qaar kamid waxaan ku guuleysanay muddo 3 sano ka hor in Hargeysa laga furo post graduate diploma wixii way noo soo laabteen annaga isku day waxaan sameeynay inaan midayno shaqadeennii nin walba meesha uu joogo wax ka qabto baahida intii way ka sii ballaaranaysaa meelaha qaarna ما بلتي كرو عكس لوما هاي وضد يا حن أنتي وحلا برينا وحكوا ذي مادين مجال عاصمة الجودة هذا مركزتك وحلا جالسين لها عد وتجيسة مجربة هذا مرة مركزي دم بيسوي سيب العرنيس وحنا هاي نوع كلينيكال أو individual قفل بوفرية هاي أو برايفت واحد دنا عام وجودنا مجرد سكست هذه السودة هي نوع الفريم هاي مركز ماشي كلية وعن رمنا هنا كل يرينه إن دلائنت يا رجال وحنا نقول إنسان ماسة إن ده الصوصار human resource أنت يا رجال هذا هرجيس الله دري وأنت ما أنت إسبتال هذا كفرتي المجال هذا جوده هذا مركا طبعا سنة كهر وهي هانجرتي إن بدها ينوغي ماذا وعيل داري وكوي البصري والسكودي هذا يكون التعب لكن for the last 10 years وحلو جولستي أجانبتين السكد هاي وضدك وحبرتين باللابان إن أيه وحبتان
weli baahida way sii badan tahay marka sanad ka sii dambeeya baahida way sii badan tahay kuwa hadda aan dirsanay ma kaafin karto waxaan isku daynay inaan primary eye care ka bilowno magaalada gudaheeda ah MCAjada si awareness loo sameeyo human resource tagama hayno waxaan isku daynay xataa hay-adihi inaan u yeerno aan tababar siino oo PhD programkii inaan primary eye care ku darno oo ayaga aan baraarujino aan dhahno drugska xataa Geneva ka keena oo ayaga aan barno tools u geyno baahida inta waa kasii ballaarantay waxaan ku koobanahay areada Muqdisho leh gobolada waxa ma jiraan la tashiyo fara badan kadib oo ku saabsan xataa hay'adaha localka iyo kuwa internationalka ah waxaa noo suurto gashay dhiirigelin oo ah war dad soo saara marka hore dad soo saara kadibna eye care service bilaabo waxa adinka idin haysta wax wadan ku cusub ma aha caalamka ku cusub ma aha wala soo wada maray waxba ha baqina wixii annaga ay idin qaban karno diyaaraan idin nahay waxaan isku daynay imtixaano dibadeed oo indhaha inaan keeno ma kaafin karno kuwa hadda Uganda ku maqan ama Kenya ku maqan hadday yimaadaan caasimadda imaanayaan meel kale ma aadayaan marka annagu base uga dhignay taas assessmentigeena marka waxaan isku daynay dhiirigelinimadaas ayna siiyeen hay'adaha internationalka iyo localka inaan dad soo saarno aan ku base garayno gobolada 8 ilaa 10 qof ophthalmic oo master ah inaan gobol walba qof ka keeno ophthalmic technician-ka daba raacsana ninkii la shaqayn lahaa dhakhtarka uu noqdo kuwaasna jaamacadda Jazeera iyo hay'adaha kale hadda ballanqaadka loo sameeyay markay dhamaystaan in la qalabeeyo dib loo celiyo oo ayaga ay meeshii ka sii wadaan marka intaas aan xoogaan ugu kaliftay inaan hawshaan bilaabno dhiirigelin dibadeed kuwa gudaha localka ah iyo annagii aan isku dayayno inaan insha Allah markaas weli lama gaarin lama yareyn karo lamana baabi'in karo magaalada gudaheeda waa laga yaabaa dad aan ka warqabin xataa caad inay iska joogaan ilmo yar oo caad ku dhashaan ka warqabin wala leeyahay magaalada gudaheeda ma foga Garas Pinto area ka warrama haddii magaalada laga baxo maxaa jira marka dhibkaas marka waa dhibka kaliya aan human resource inaan raadin waxaan 2014kii waxaan maray WHO World Health Assembly lagu qabtay Geneva waxa laga soo saaray indhaha markii ma garanaysaa loo gudbiyay contribution ah in human resource la soo saaro kadibna eye care service la bilaabo wadamada qaar way isku dayeen laakiin annaga inaan isku dayno yaan rabnaa waxaan rajaynaynaa bilowgan hadda ah inaan ku base garayn doono gobolada qof gobolka yimid originalka laaban doono commitment la geli doono kana shaqayn doono meesha iyo laba qofood oo ophthalmic technician ah oo aan tababarno ayagana dibloma qaato waan haynaa dad aan tababarnay 10 sano hadda ugu dambeeyay Carabiyaashii Dr. Shiina aan isku daynay kuwa hadda shaqeeya laakiin ma haystaan certificate marka waxaan rabnaa wixii inaan academic ka dhigno kan aan siino certificate-ka ma ugu talagelin magaalada gudaheeda inuu ka shaqeeyo xataa fursad mustaqbalka hadduu helo jaamacadan waa la aqoonsan yahay marka inuu dibadda xataa ka shaqeysto taariikhda noocaas aan rabnaa marka waa aad mahadsantihiin soo qaybgalkiina waxaan rajaynaynaa kullaga iyagaba inaan mashruucan ka hortagayna laanta aan u istaagi doono jaamacad kaliya ma aha wasaarad ma aha individual walba qof walba inuu maskaxda gashto qof walaalkiisa oo indhala oo meel fog jira wax u qaban karo inuu qabto aad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq aad u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa Dr. Cabdisamed Xasan Haye oo barnaamij runtii ujeedkiisii iyo sababaha kalifay in barnaamijkan loo sameeyo inoo faahfaahinayay runtii waxaan xusuusan karnaa ama qof walba maskaxdiisa ku hayaa haddii la sheego dhakhtar indho ku takhasusay Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho dad yar oo farkutisa kugu soo dhacaya haddaan u baa dhakhtar indhaha waxay ku soo dhacay Albaashi waxay ku soo dhacay ama Dalmar muxuu ahay Dr. Cabdisamed farkutiris waa hebel ayagana odayaal waa socdaan waxtagan maalin qoddo u jeedinaya Dr. Cali aan joogay wuxuu dhahay 77kii mar ka soo shaqeynaa dhankaas jubbooyinkii ma aqaan anima u dhalan bas 77kii xilligaas uu taagnaa u shaqeynay soo dhakhtar runtii marka waa loo baahan yahay marka in la helo dad bedela dadkaas in la soo saaro waa loo baahan yahay marka dadka hawshan u istaaga waxaan dhihi karnaa hawl fiican baad u istaagteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala garabkiin Allah galo marka bal hadda intaan programka labaad aanan gelin marka waa in la xusaa ama uu kalmadiisa asna u jeediyaa Dr. Ali Baashi maadaama barnaamijka indhaha rabnaa soo xirno aan kii kale inaan galno marka qaybta indhaha asaan ku soo xirina insha Allah Dr. Ali Baashi aan ku soo dhaweynaa barnaamijka inuu fikirkiisa aragtiisa ka dhiibto insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرتدى شرفت له قفل بمقام كيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan jaamacad jaziirana aad baan ugu mahadnaqaynaa horumarkan iyo barnaamijkan cusub ay bilowday waayahan waxaa laga hadlaa tayeynta jaamacadaha Soomaaliya marka jaziira horey u sii martay oo talaabada u dheeree weeyo ay aad bay runtii talaaba qiimo leh u qaaday aad baan dhinacaas uga hambalyeynaa barnaamijtan ballaaran ee post graduate-ka ay bilowday gaar ahaanna midkan indhaha runtii indhaha wax yar haddaan ka iraahdo micnaha aad ka qiyaas qaadan kartaan cudurrada indhaha indha la'aanta keenay laba nooc bay u kala baxaan indha la'aan laga hortagi karo oo hadday kugu dhacdo aan laga hortagina hadhow waxba laga qaban karin iyo indha la'aan la daweyn karo qof kasta oo ilaahay cumri siiyo 60-70 markuu gaaro indhihii caad baa fuulaya araggiisa wuu yaraanaya sanadkii waxaa la qiyaasaa 10% haddaan Soomaali niraahno 20 milyan waxaa naga indhabeelaysaa 20,000 ayaa sanad walbaba caadkii soo garaya oo indhabeelaysa 20,000 waxaa haynaysa 20,000 oo qof oo kale oo ag fadhinaysa odagii aabihii oo habartii markay indhabeelaan ag fadhinaysa waxaa kaa baxaya xoog badan oo bulshada wax u tari lahaa haddii marka aan 20,000 sanadkan la qaban sanadka dambe waa ku darsantay sanadka dambe muddo gaaban 1 milyan bay gaarayaan dadka indhaha la waxay u baahan yihiin xuubka indhaha cataract in laga fiiqo waa tiro marka adna waa inaad tiro la timaadaa hawshaas qabata marka barnaamijkan hadda ay bilowday jaziira iyo Dr. Cabdisamed post graduate-ka indhaha ciidankii hawshaas qaban lahaa buu na siinaya waxaa la yiraahdaa rag helaaba tala hela war helay ahayd ma ogtahay hadda markaad ciidan hesho rag ama dumar ayaa dagaalkaas ka hortaga indha la'aanta ayaad qaban kartaa waxaan rajaynaynaa marka barnaamijkan inuu aad u hirgalo aad baan u taageersanahay qayb fiicanna waan ka qaadanaynaa insha Allah Dr. Cabdisamed runtii hal abuurka ayuu aad ugu fiican yahay barnaamijyo badan ayuu noo bilaabay kanna marka waan ugu hambaleynaynaa soo saaridda takhaatiir indhaha hal qof oo scholarship ku hela iyo hal qof oo isagu jeebkiisa iska bixiyo oo dibadda ma ku filan karto marna hawshan la sugaysa marka indha la'aantaas aad baan jaziira ay bilowday aad baan ugu mahadnaqaynaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aad u mahadsan yahay Dr. Ali Baashi جزاه الله خير الجزاء runtii dadaal dheer oo aan la soo koobi karin ayaa barnaamijkan uu muddo dheer ku dhex jiray sababtiisana dad badan muxuu ahaayay ay indhahu ku shaahoobeen ilaahay isaga sabab uga dhigay marka waan u mahadcelinaynaa insha Allah Dr. Ali Baashi ka soo qaybgalka wanaagsan soo qaybgalay maanta barnaamijkan waxaan hadda nagu soo beeray agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada mudane Dr. Xasan aan isna leenahay mahadsanid Dr. Xasan dadaalka dheer iyo juhdiga aad soo gashay si aad ku soo gaarlid halkan runtii wadada loo soo mari lahaa meesha waa meel qurxoon laakiin jidka loo soo mari lahaa ayaa waxa ah jid aad u dhib badan marka jidkan qofkii soo maray runtii wuxuu mudan yahay in aad si gaar loogu mahadceliyo marka waa u mahadcelinaa insha Allah sida sheegay programkan laba qayb ka kooban yahay qayb oo ah master oo post graduate ah oo ophthalmology ah iyo waxa daba socda qayb technician ah ophthalmic technician oo undergraduate ah isaga oo dadkii kaalmeyn lahaa qofkaas soo baxay dadkii caawin lahaa asna in la soo saaro marka programka waxaa ka mid ah sidii loo soo saari lahaa dad technician ah oo la shaqeeya dhakhtarka takhasuska la shaqeeya inaan soo saarno ayaa barnaamijka ku jira marka waxaa noqon kara arday
arday dugsiga ka soo baxay in loo tababaro muddo 2 sano ah oo dibloma uu ku qaato si uu la shaqeeyo muxuu ahaayey barnaamijkaas laga bilaabo saacan aan hadlayno telefishinada qaarkood waa live facebookyada waa live waxaan iclaaminaynaa aan sheegaynaa laga bilaabo saacan wixii ka dambeeya isqorista inay socoto barnaamijka waa imaan kara waxaan u gudagalaynaa barnaamijka qaybtiisa labaad oo ah post graduate iyo oo distance learning ah oo jaamacad ku taala Talyaaniga oo runtii ayada la aasaasay 2005 baan akhrinayo page-kooda kuna aasaasantay qaab oo distance learning ah oo wadamo badan oo dunida ku yaala programkoodii ay gaarsiiyeen Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay soo gaarsiiyeen programyada ilaa 15 program waaye runtii waxay ku taalaa banfaleedyada inta ay ka kooban tahay programyadaas ay bixinayaan oo intooda badan ay tahay 2 sano iyo sanad iyo 8 bilood qaarna ay yihiin ama 18 bilood qaarna ay yihiin marka wixii tafaasiil oo arintaas ku saabsan insha Allah jaamacadda baan la imaan doonaan ka dharjin doonaa faafahinteeda laakiin sida barnaamijkan uu Soomaaliya ku soo gaaray iyo sida barnaamijkan uu hirgelay inta sano uu barnaamijkan soo socday iyo hadda jaamacadda Soomaaliya ay waxaan dhiirabay magaalada Muqdisho laga bilaabi doono iyo qaabka looga bilaabi doono insha Allah waxa inoo sharaxi doona muxuu ahaa Mr. Farxaan oo barnaamijkan runtii yani qoto dheer iyo muxuu ahaa xog badan ka haya marka inaan la wadaagno ayaan rabnaa inaan faahfaahin badan naga siiyo tafadal waxaan ka socdaa Global Science University oo ku taala waqooyiga Gaalkacyo waxaan kala qaaday Gaalkacyo bas ka dhahay okay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحسن يا حامد runtii waxaan insha Allah taala aan rajaynayaa inaan kulli wixii salaanaha iyo maaragtay wixii soo dhaweynaha waxay noo sameysay jaamacadda Jazeera University protocolka salaanta aad isku fiicnin marka qof walba waxaan jeclaan lahaa meesha joogo iyo maqaamku joogo inuu ku qaato aad iyo aad baan insha Allah taala idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalkiina wanaagsan insha Allah waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto programkan masters degrees-ka oo fara badan oo ay jaamacadda Jazeera maanta daafurayso halkan Muqdisho inoogu daafurayso programskan waxaa horta runtii aasaasay oo bixinaya jaamacadda la yiraahdo International Dramatic University oo Natuno afka Talyaaniga lagu yiraahdo oo ay ujeedaan ayadu waxaan rabaa wax yar horta jaamacaddaas waxay tahay inaan ka ilaahdo ayadu ujeedadii markii ugu horeysay ay ku aasastay waxay ahayd inay waxbarashada tayada leh jaamacadaha waaweyn ee Yurub ku yaala aysan ku koobnaan Yurub kaliya waxbarashadaas lagu bixiyo sidoo kale la gaarsiiyo wadamada adduunyada kale ee maxaa third world la yiraahdo ama maxaan ku raahdaa waxbarashadooda aysan aad ku horumarsanayn oo tusaale ahaan Soomaaliya ka mid tahay iyo kuwa waliba waxbarashadooda horumarsan tahay waxaa ku soo baxday sidoo xamu sheegay 2015 furantay presidential degree baa lagu aasaasay oo jaamacadda waxaa si toos ah u aqoonsatay dawladda Talyaaniga oo maxaan ku raahdaa dabcan waxay ku soo baxday presidential degree inkastoo ayadu ay tahay jaamacad bareefad ah jaamacaddaas isla ayadoo 5 sano jidha 2010kii waxay ku guuleysatay inay noqoto jaamacadda ugu qaalisan oo bixisa maxaan ku raahdaa jaamacadaha distance-ga bixiya Yurub oo dhan ama Mediterranean waxyaaba bixiya ku guuleysatay وحرير لا لها جامعة وين أدون كأ iyo colleges caalami ah meelaha xiriirka leedahay waxaa kamid ah London School of Business, Berlin School of Business, iyo Halwan University oo ayadana maxaan ku raahdaa meelo badan adduunka oo kamid tahay Masar iyo ay xarumo ku leedahay jaamacadaha xiriirka leedahay waa laba qaybood qayb waa qayb ay ka soo qaadato koorsooyinka ay ka soo xirto iyo qayb ay siiso koorsooyinka jaamacadaha waaweyn ee tayada leh ee meelahaas ku yaala waxay ka soo qaadataa program bay ka soo xiraysaa programkaasi waxay gaarsiinaysaa adduunka oo ayadu waxaan ku raahdaa distance learning ku gaarsiinaysaa iyo kuwii reserve gareyn lahaa sida jaamacadda Global Science University iyo Jazeera oo kale to ayagu u noqonaya dadkii beneficiary ay wax baran lahaa programska hadda gacanta ku haya oo boardka ah waxay ka kooban yihiin 15 program iyo kuwa kale oo badan oo hadda loop ku soo jira oo aan codsanay maxaan ku raahdaa waxyaabaha wadamadeena relevant-ga la ah ama khuseeya ee wadamada maxaa la yiraahdaa Afrikaanka iyo Soomaalida iyo aadka u jecel yihiin aan codsanay oo ayagana inoo diyaar ah uma baahna u malaynayaa inaa la idin mid loo dul istaago halkaas ku wada qoran yihiin
business management oo digital ah qaab digitalka la sheegay waxa weeyaan wayadan waa la socotaan adduunka wuxuu ka guurayaa qaabka caadiga ah oo loo shaqaysan jiray oo physicalka ah digital baa loo socdaa xitaa waxyaabaha hadda soo kordhay oo maaragtay lagu wareegsan yahay waxaa ka mid ah lacagihii adduunka in qaab digital ah lagu maamulo marka businesska digitalka ah bay si gaar ah business management way laakiin digital sida digitalka waxyaabahaas looga maxaan ku rahdaa bay focus saaraysaa sidoo kale mid ayana si digitalka laakiin qofku takhasusay health management oo ayadana meesha ku qoraysa ujeedaan accounting and finance baa ku qoran expected launchiga meesha ku qoran tahay already waa la bilaabay waa socotaa waana diyaar anytime qofku suuraysan garan karaa bilowgii sanadka lagu qoray expectedkaas business management oo ayadana qofku uu specialization ku noqon hayo public administration ayadana waa ujeedaan waxaa sidoo kale kamid ah engineeringkii oo asagu qeybo badan oo qeybta maxaa lahahdaa construction and design-ka ah qeybta structures oo civil engineering waayo construction and design qofku takhasusaya ama wuxuu takhasus ka qaadanayaa structures and infrastructures wadooyinka iyo waxyaabahaas iyo buundooyinka iyo MSc in computer engineering oo big data waxa la yidhaahdo programming and security oo ayadana computer engineering ah waxaa kaloo kamid ah journalism master's degree in global journalism waxaa kaloo kamid ah tourism and hospitality management maadadan kale waxaa laga yaabaa dadkeenu inaysan aada u xiisayn laakiin waa maadooyin adduunka muhiim uga ah oo hadda waaba bilaabtay hoteelo badan oo waxaan ku arkay dadka inooga shaqeeya hoteelada waaweyn hadda meelaha ku yaala banaanka laga keenaa dad maxaan ku rahdaa maadooyinka soo bartay diblooyin iyo degree iyo kasoo qaatay waxaa kaloo kamid ah public administration oo asna MBA ah baa kamid ah oo asna gaarkiisa ati digitalka aan ahayn accounting and finance baa kamid ah kuwani waa kuwa ayada tooska u bixiso kuwa kale oo badan oo MBA kamid yahay maxaan ku rahdaa marketing and finance kamid yahay oo ayagana aad u fara badan baa jaamacado kale laga soo xiriya oo health management toos ka mid tahay so far programku see u hirgalay hadda waxaan ka launch garaynaa Jazeera laakiin wuxuu shaqaynayay muddo hadda 2013 baa heshiiska ugu horreeyay la kala saxiixday waxaa dhigatay arday Soomaali ah jaamacadda Global Science University ee ka qalin jabisay already batch baa ka qalin jabiyay laakiin hal program oo health management ka qalin jabiyay 18 bilood soconaya runtii program aad loo mahadiyay waaye qaabka ama systemka wax loo baranayo oo maxaa la yidhahdaa dadka wax loogu dhigayo waxaa isweydiin mudan sidee bay maaragta dadka lagu gaarsiin karaa maadooyinkan qaarkood ayagoo oo maadooyin technical u baahan oo technical sidee lagu gaarsiin karaa qaabka horta wax loo biro oo dadka loo biro waxaa kamid ah qaab technological ball waxaa la yidhahdaa barnaamij weyn oo video screening ah oo halkaa inta lagu dhajiyo oo professorkii oo Italy jooga uu online kasoo noqon haya jaamacadda oo ardadii oo sidaan oo kale u fadhida ay live casharka u qaadanayaan oo kaliya ardadana kaliya maahan ardada kale ee adduunka oo dhan ay saa u galaaska wada qaadanayaan waa barnaamijka koowaad barnaamijka labaad asagana galaaska tooska loogu qaadan waxaa kamid ah barnaamij la yihahdo Skype for business Skype-kan caadiga hadda isticmaalno kale ma ahan waa program weyn oo maxaa loogu talagalay waxyaabaha business maxaan ku rahdaa shaqooyinka caadiga ah ama miitinada waaweyn adduunka dhacaya in lagu galo jaamacadda program noocaas ay leedahay ay iibsatay ardayga isqora waxaa loo sameynayaa user and ID wuxuu computerkiisa yar asagoo qolkiisa dhex fadhiya xaadiraya galaas ardaygaas uu professorkiisa la hadli karo professorkiisu isaga la hadli karo arday kale ee adduunyada meel kale jooga la hadli karo interaction la sameyn karo maxaa la yidhahdaa keliya uu kaga duwan yahay macalinka xiisada ku dhigaya caadiga ah aniga hadda idin hortaagan kale uu kaga duwan yahay aniga way taaban kartaan hadda haddaad soo istaagtaan laakiin macalinkaas ma taaban kartaan that's the only difference ama kala duwanaanshaha keliya ee maxaa la yidhahdaa oo macalinka professorkaas uu kaga duwan yahay midka galaaska soo xaadiro caadiga weeyaan saas darteed waxaa yaraanaya waxyaabihii ardayga su-aalaha ay weydiin lahayn waxyaabahaas oo dhan buu professorku uga jawaabaya professor iska dhiga waa professors adduunyada jaamacadaha waaweyn ee Europe professor ka ah oo nin walba in ka badan 30 sano maadadiisa dhigayo experts ah oo ayaga qaarkood ay develop gareeyeen programadan oo documentiyada xataa la dhiganayo qaarkood qoreen marka waa runtii waa fursad aad iyo aad qaali u ah waxaa kaloo kamid ah waxyaaba fursadaha ardaygu helayo videos and audio oo loo soo gelinayo accountkiisa mentors baa kamid ah macallimiin mentor gareys oo assignmentiyada iyo mentor gareys iyo markii book la qorayo world class library and books oo access ugu yeelanayo iyo professors lecture notes waxyaabahaas waxyaaba materials ardayga caawinaya inuu xiisada si fiican u barto waxyaabaha halhayska u ah jaamacadda waxaa kamid ah time iyo space inaysan ahayn wax caqabad ah qofku inuu wax barto ayaga qaabka u design garaysan yihiin adiga halkaa joogtaa muqdishoad joogtaa markaad programka dhiganaysid waa samayn kartaa galaasyan anaga samayn doonaa insha Allah taala halka lagu samayn doonaa
laakiin adoo gurigaaga jooga aad userkaaga isticmaalaysaa tartiib koobshaa u yeeranaysaa cashirka xiisadaada dhiganaysaa ma u baahnid in time lagu qabto in maxaan ku rahdaa axaadirtid space heshid waxaasoo dhan uma baahnid laakiin flexibility waxa ah oo keliya maxaa la yidhahdaa inaa meel fadhidid laakiin xiisada iyo programka iyo suu u baxaya iyo assignmentigeeda iyo culeyskeeda iyo hawlaheeda dabcan waa wadataa programmiska aan runtii hadda barno waa ka sheekaynay qaybahan marka soo la yidhahdo maxaan ku rahdaa gobolada dhexe iyo koonfureed waxaa wakiil ka ah oo programkan daatiinaysa hadii ilaah yidhaahdo maanta laga bilaabo jaamacadda jazeera university oo sidaas ba heshiis ku yahay wixii dhinacaasa oo maxaan ku rahdaa waqooyi iyo galbeed iyo wixii la doon halda ama puntland iyo somaliland haddaa si kale u yidhaahdo ahna waxaa ayadana insha allah qaabilsan maxaan ku rahdaa global science university oo ayadana program ka wadaysa iyadoo sidaas jirto haddana baa adiga meesha meesha adiga jeceshahay iska qori kartaa ama jazeera iska qori kartaa ama global baa iska qori kartaa meesha hal meel bay arday isugu tegayaan faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah programmada waxaa ka mid ah program hadda halka inoogu qornayn oo ay jaamacadda kula jidha heshiisya kale oo la yidhahda water and resource maxaan ku rahdaa management oo already scholarships aan helnay ilaa 6 scholarship mar hore aan helnay hadda teamka jazeera waxaa ka mid ah dad kale baa ka mid ah engineer ma jooga engineer Abbas waa maqan yahay malinaya marka waa already waa bilan dadkaas fursadda ay heli doona waxaa ka mid ah in mathalan bil oo kale hadda sida qorshuhu yahay ama 2 bilood oo kale la kaxayn doono oo Switzerland oo kale ay kusoo qaadan doonaan maxaa la yidhahdaa tour education ay kusoo qaadan doonaan oo maxaan ku rahdaa experience ay soo helayaan waxyaabaha ay samayn doonaan marka walaalayaal programka runtii waa program aad iyo aad qaali u ah ilaa iyo 41 jaamacadood oo adduunyada kala yaala oo qaarkood ku yaala qaahira ama masar ku yaalo qaarkood ku yaala turkiga qaarkood ku yaalo maxaan ku rahdaa jordan iyo wadamo kaloo aad u fara badan oo africa iyo asia iyo qaybo kaloo yuruba ka mid yihiin baa maxaa la yidhahdaa beneficiary u ah oo ka qaata programmadan isticmaala dadka aadka u isticmaala waxaa ka mid ah youtube-ka hadda gelisa arki doontaan qaahira university of maxaan ku rahdaa masar oo ardayda already ay ka qalin jabiyeen fursadaha ay bixiyaan waxaa ka mid ah luuqadda ay ku baxayso Italy bay ku baxdaa English bay ku baxdaa xogmada Carabi iyo French marka qofkii intaas mid ka mid ah access u leh wuu baran karaa hadii hadda adoo Soomaaliya waxaad codsan kartaa inaad tiraahdo Carabi baan ku baranaya kursooyinka Carabi ha leeyahay is ready Italy baa u baran kartaa waa diyaar Francis waxa adiga qaabka u jeceshay waxa laga yaabaa dad ku fiican Italiyaanka oo English ku adag yahay ama Carabi ku fiican oo English ku adag inay joogaan problem ma lahayn wala xaliyay marka waxa cilmi baarista iyo dadka la shaqeyn doona dad experts oo researchers ah oo runtii world renowned aad looga yaqaan adduunyada macallimiinta adduunyada aad looga yaqaan oo professor ah marka dhamaysaa faa'iidada xataa leedahay waxaa ka mid ah waxa xiriir la yeelanaysaa professor waaweyn oo adduunka oo mid kasta leeyahay thousands of articles boqolaal article ama kunaan article oo wado oo hadhow tole xataa qof academics raba inuu sii horumariyo haddaa tahay waxa weeyaan waa aad muhiim u tahay waxaan saa u leeyahay dadka dhalinyarada og mararka qaarkood haddaa rabtid inaad meel codsatid ama scholarship codsatid anigaan bay igu dhacday waxaa la jecel yahay qof academic oo professor la yaqaan inuu ku recommend gareeyo hadduu ku recommend gareeyo oo documentiga waxaa ku qoran yahay more likely waxa ah inaa scholarship adduunka hadda badbadaas iska yaacaya ay heshid marka kolley programka ma intaas unba koobiya wixii faahfaahin jaamacadda la imaanaya sidii la sheegay uu furan yahay hadda laga bilaabo ayagaa marka qofka si individual su'aalaha la qabo uga jawaabi doona haddii qof ama laba su'aal qabo insha Allah uga jawaabaya hadda diyaar baan u hayo ani qof ah intaan stage ka degin chance yar oo haysto marka soo dhawaada inkastoo ninkaasna iima ogolaan laakiin waa iska boobe laba qof baan ama 3 qof haddii su'aalo qabaan uga jawaab very good question okay ayaga u dhisan gareeyay maadaama ay jaamacadan qorshadeedu ahaa inay waxbarashada sare waxbarashada ayaga ay hayaan ee tayada leh ay si outreach ku bixiyaan oo qofku meeshuu rabo asagoo jooga ay gaarsiiyaan ayagaa u design gareeyay waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah khaanadaha lagu furaya khaanadahaasa waxaa ku qaadanaysaa practicalka kow macallinkii professor waxaa lagu sameynayaa mentor ah waa labo haddaad u baahan tahay wax inaad gacan ka samaysid ayagoo caadiya oo maxaan ku rahdaa online ah baa wixii lagu tusayaa dabcan wixii oo technical mathalan hadda engineering oo kale waxaa lagu tiriyaa maxaan ku rahdaa assignment yaa lagu siinayaa waa kasoo jawaabaysaa isbedel adeegka maxaan ku rahdaa meel construction haddaad xataa inaa wax caadi u qabaysid lagu tuso baa tegaysaa asraas waxaan ayagaa marka design garaysan oo waxay leeyihiin program qaanada lagu furayaa
systemku waa diyaarsan dad u tababaran baa jira oo mentors la yidhahdo oo waxaas adiga kaa qabtiraya مثلا عند civil engineering oo kale oo degree ah degree baa xitay not only masters anaga masters hadda iska xiisayn inoo jamcadani waa degree bixinaya maahane even degrees baa jira waxaa ka mid ah degrees ka jira مثلا environmental and civil engineering maada la yidhahdo waa 3 sano oo keliya ayagaa qofka u diyaarinaya dad badan oo waxaan arkay maxaan ku rahdaa oo ka bartay ban youtube ka arkay oo aad waxyaabaha ku qoran haday ay dhahayeen marka waa diyaarsan yihiin waa system diyaarsan casharadana qaabka loo qaadanayo waa ninka soo sheekeeyay macalinku kama badwana macalinka hortaagnaa Skype for business baa jira oo macalinka iyo ardayda su'aalaha ku weydiin karid oo la munaaqashoonaysid marka inahaas aan umaleynaya inay jiraan fursadahaas oo kale qof kale ka gacanta taagayay qofkaas aan chance bise waa okay aad baa mahadsantihiin insha Allah taala وياي aad u mahadsan yahay Mr. Farxaan intaas wixii ka sii dheer oo faahfaahinaa insha Allah waxaan diyaar u nahay inaan intaan dhageysanaysa iyo inta hadda fadhidaba inaan ka qabtano insha Allah waxaan maraynaa guntii gabagabadii inaan soo gabagabeynaan jeclaysanay sababtoo ah horaan u daahnay markii inaan gadaal ka sii daahno ayaan diidanahay runtii aniga markii meel laga yaro oo meel fariisto aan wax dhageysan in la ii soo gaabiyaan jeclahay marka maadaama saas aan jeclahay waxaan jeclaysan inaan soo gaabiyo aniga waxaan soo yareyno marka waxaan ku soo gabagabeyn doonaa jaamacadaha maadaama ay soo ajiibeen in qof kamid aan siino ururada bulshada Professor Sharwac inaan kalmad siino kadibna aan wasaaradda ku soo xirno intaas aan ku soo khatimaan insha Allah raalina hada inta kale ka tagi doon Professor Jamaal al-Ishaari Jamaal تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح شرفت لي كسعة وزارة محبرشة تعليم السرع. مدح كسعة جامعة كل دول برشة ريد كا. مدح شرفت لي جاقا جارهان سلام يا دخاتيرته سومالية شرفت لي يجونا. ضمان مرت شرفته. سلام الإسلام كان يدكو سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. arrinku wuxuu dalbanayaa in la dhaqsado oo maaragtay hadalka aad loo soo koobo waxaan bogaadinayaa jaamacadda Jazeera oo lagu yaqaan waligeedba inay wax wanaagsan keento marka dadaalkeedii iyo waxsan keenkeedii iyo wanaageedii ayay si laba jabaartay kalsooni weyn ayaan ku qabnaa carruurteenana kalsooni weyn ayaan ugu qabnaa maadaama aan kalsooni ku siinay barnaamijkii undergraduate-ka isla markaasna ay kamid yihiin dadka lagu yaqaan inay itqaaniyaan waxbarashada sidoo kale waxaan rajaynaynaa inay sidoo kale kanoo kalaana iskuna hubnaa insha Allah inay isagana ay itqaanin doonaan waxaan si aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhaqaatiirta indhaha runtii waa u masayraa markan aan maaragtay arko mararka qaarkood dad waxaan aqaanaa badan oo in la jira bariga hore oo hadda wax arka oo mataqaana dhulkooda mara intaas oo jeeraan arkay iyadoo leeyahay Dr. Albaashi khayr Allah si دكتور عبد الصمد خير الله سيو دكتور شيرين خير الله سيو هذا مثلا runtii u tamaniya dadkaas oo kale inaan noqdo marka hadda anigu dhakhtar hadda indhood waxaan u maleynayaa hadda inaan noqonaynin laakiin iyagan ducada insha Allah taala ku kabaynaa hadii ay barnaamijkan sidoo kale post graduate-ka jaamacadda Unitino asagana aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa adduunka sidiisaba wuxuu noqday gacan wax hal calaacal ayuu isugu yimid maxaa la yiraahdaa waxa la yiraahdo technology waxyaabaha ay fududeysay ay kamid yihiin waxbarashaduna waxay kamid tahay arrimaha noocaas oo kale technology-gu nolosheena dhan saameyn ku yeesho wax ka bedelay sida aan wax u barano sida aan u safarno sida aan maaragtay u dagaalano sida aan maaragtay macluumaadka u kala qaadano waa isbedelay sidoo kale tacliintu waxay kamid tahay meelaha uu sida aad iyo aadka u saameeyay waxaan aaminsanahay inuu practical yahay lagana faa'iideysan karo waxaan ku boorinayaa dhalinyaradu iyo dadka waxbarashada inay mataqaana ay sidoo kale ay ka faa'iideystaan waxaan fursaddan uga faa'iideysanayaa joogitaanka madaxda sharafta ee ka socota wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare jaamacadaha Soomaaliyeed waa dadaaleen ummadda Soomaaliyeedna waa dadaashay meel eber wax ka soo qaaday iyadoo dawladdu maqanta wax jooga aan la arag halkaani wax soo gaarsiiyeen hiiladayna u baahan yihiin hiiladiina ay u baahan yihiin igamana dhageeridin kulli wax magaalada ka socda ogtiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh okay aad u mahadsan yahay Mr. Jamaal saaxiibkay oo runtii kelmad aad u qiimo badan oo gaaban
oo aan u bagnay soo jeediyay marka jazaaka allahu khayr aljazaa aan leenahay. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa professor Shirwac oo kelmadiisa qiimka badan sugaynay muddo dheer inuu insha Allah asna halkan kasoo ka jeediyo insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan filayaa dadkii hore ayaan la qabaa amaantii iyo salaantii iyo muxuu ahaa mataqaana bogaadintii waxaan rabaa inaan iraahdo jaamacadda Jazeera iyo jaamacadaha kale ee hawshan kala soo shaqeeyay jazakallahu khayr waan idin bogaadinaynaa yani muxuu ahaa caruurteedana waan ku dhiirigelinaynaa anigu bulshadayda kaliya odayna waan ahay waqti marka dadka lacagta laga guran kamid ahay maaragtay marka waxa weeyaan waa idin bogaadinaynaa caruurtana waan soo diraynaa inta marka aan ka gudbo waan muxuu ahay madaxda wasaaradda aad baan saaxiibaan nahay waa muxuu ahay waayahan aan sarkin waa si gaar ah ayaan u salaamayaa waxaan rabaa inaan iraahdo laba arrimood oo kelmad mid waa iska fududahay horta bulshadayda markii la yiraahdo dadka waxbarashada iyo caafimaadka ka shaqeeya iyo inta la halmaashay injineerada iyo ayaa ah moogta marka in laga guuro in bulshadayda loo yaqaano NGO-yada ayaa ujeedadeedu ay tahay marka haddii ardadii iyo macallimiintii iyo dhaqaatiirtii aysan isu aqoonin bulshadayda marka waxa weeyaan waa meel halis ayaan joognaa marka taas waxaan jeclaan lahaa in ardada loo sheego inay bulshada rayidka iyaga ka bilaabato iyo macallimiinta iyo dhaqaatiirtaba loo sheego taas markaan ka gudbo waxay wax badan ba cadayde Dr. Ali Bashi khayr Allah siiyo wuxuu xasuusiyay in asbuucyadan lagu jiray tayada maaragta laga hadlayay waxbarashada laga hadlayay waxa jirta maamaha hore oo Greek-imiya laga soo wariyay mi amaqaan oo dhahaysa tayadu waxay ka timaadaa tirada marka jaamacaduhu way dhaafeen waqtigii tiradii ka batay hadda waxa dambe oo la idin kaga fadhiyaa waa tayo waay waa mahadsantihiin professor Shirwac waa mahadsan yahay inta jeer uu ka istaagay meelaha saan oo kale ma yareyn inta jeeran hor fadhiya wax ka dhageysanaa ma yareyn marka cimrigiisa Allah barakeeyo runtii dadaal badan iyo juhdi badan ayaa wuxuu u geliyay sidii nabadoonnimo iyo xal iyo waxyaabo badan uu sameeyo ayuu waqtigiisa soo geliyay runtii marka waa in loo duceeyo mudan yahay marka aan u duceyno professor Shirwac dadaal badan uu bixiyay jazakallahu khayr jazaa insha Allah haddeertan waxaan u yareynaa agaasimaha waxbarashada agaasimaha tacliinta sare Mr. Cabdishakuur si asna kelmadiisii aan sugayna qiimaha badnayd uu halkan ka jeediyo kadibna professor Xasan waa sii doona asna ugu talagalnay asana soo xiri doona بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خيارتا كلي وسلامنتهين وفري ببرتقول كيسا شرفتي سيكو سلاميهاي تبكو حكتا وحاوي وانوهم بليينينا جامعتها دالكا يددكا رأيتك إيه وحبر الشدودة دولد أي مقنطاي أي سفي عن دالكان وحبر الشديسي وقصو شقيي dadka isaga ayaa iska leh dalka waxbarashada ay sameeyeen ayaga iska leh wasaaraduna leading bay u tahay guud shuruucdii waxa laakiin inta dadku ay qabsadeen waxbarashada iyo jaamacadaha aad iyo aad aan u garab taaganahay aad baan ugu mahad celinaynaa anigu laftigay macallin jaamacadeed baan ahayo iyadoon dalka jaamacad ka sameysmay baan ka soo bilaabay oo 97 ilaa haddana waan ahay weli professor aan ahay jaamacadaha ka shaqeeya waan ogahay jaamacadaha waxay soo mareen muddo gaaban ayaan xafiiskan hadda aan joognaa oo aan u baahanay in waxbarashadii sida hadda la sheegayo in tayo la guda galo dadka oo dhan hadda message-ka waa gaaray meel buu kasoo bilowday waa ognahay message-ka laakiin hadda waa loo dhinacaasa la wada aadayaa insha allah maantaba waxaan joognay oo furnay training ku saabsan
tayada oo hadda ka socdo hotel alxayaat oo ay jaamacadaha ay ka qayb galayaan si loogu socdo yani steps soo socdo waa tiradii yani waa la gaaray ta ku xigta xafiiska hadda inta aan dib u habeynta ku sameynay waxaan diiwaan gelinay oo noo diiwaan gashan 97 jaamacadood dadka sheegaya meelaha muqdisho 100 baa ka furan ma waqooyiga puntland iyo koonfurta oo dhan muqdisho ay ku jirto ay baydhabo ku jirto baydhabo kaliya 5 jaamacadood ku taal oo diiwaan gashan kismaayo ay ku jirto intoona marka la isku daray waxaan noo diiwaan gashan oo noo habaysan hadda 97 jaamacadood iyo 2 center oo cilmi baaris waa warka dhabta ah way kan naloogu sheegay Nairobi ma aha waxaan ku dadaalay inaan kala hufno oo jaamacad waliba diiwaanka ku qorno oo addresskeedii iyo emailkeedii iyo wixii markii loo diraayo hal email wada jira loogu diro taa marka waxaan ku wadnaa tayada ayaan hadda agta saarnay oo hore baan u socnaa 97 jaamacadood 64 ayaan xog ka haynaa way inta xogta soo gudbisay xog baan weydiinay oo sax ah oo 5 sheet ka kooban jaamacad waliba magaceedii hawsheedii halkay ku taalo meesha lagala xiriirayo ilaa aan gaarsiino ardayda ka qalin jibisay 3 sano ugu dambeysay jaamacadda aan ku hayno si looga jeegareeyo shahaadooyinka la tasdiiqayo waad ogtihiin inflation ka dhacay shahaadooyinka oo suuqa bakaaraha sidan ay caan ugu yihiin marka inflation kaasi loo joojin lahaa muddo dheer bay qaadanaysaa laakiin waxaan ku dadaalay jaamacad waliba dadka ka takharujeen ay soo gudbiso oo wasaaradda hayso si looga jeegareeyo shahaadadii la keenay marka taas waxay tusaysaa inaan xagga tayada aan aadno waxa aad isugu dhex darsan diiwaan gelin baan ku jirnay annaga hadda stepka koowaad waxyaabo waxaa jira la yiraahdo accreditation ama in la qiimeeyo jaamacad xeerka ay joogto in la qiimeeyo taa weli guddigii qaran National Commission for Higher Education oo madax bannaan ee la rabo jaamacad inuu soo arko isaga oo eegaya standardizationka adduunyada iyo wax qoran kii haddaan ku jirnaa ilaa sanadkan aakhirkiisa insha Allah waxaan rajaynaynaa in la sameeyo si jaamacaduhu ay siday u kala sarreeyaan ay ugu samaysan oo falma meesha joogo si waxayna tayo noogu yeeshaan adduunyada kalena aanu ula jaan qaadi karno marka hawshaas waa more technical way wasaaraddu hadda aad bay ugu shaqeysaa hawlahaas iyadoo oo habeenii maalin ay sida loogu shaqeynayo wax ma jiro aanan la ogeyn hadda kaliya post graduate-ka la sheegay aad baan ugu hambalyeynayna indhaha waliba aad post graduate-ka aad muhiim ugu yahay dalkana muhiim ugu yahay mid baa jirta marka jaamacadaha lala soo gelayo heshiiska waa inay wasaaradda ay ogtahay MU-ga jaamacadaha lala soo gelayo ama distance learning ha noqdaano si dawladda ay u ilaaliso waxyaabaha dadkeedii loo dhigayo jaamacadahaas maxay dhigayaan sida in la iska socdo maaha taa darteed waxaan jaamacadaha u sheegaynaa inay soo gudbiyaan weliba undergraduate-ka hadda waaba meel baan maraynay laakiin post graduate-ka waa in la soo gudbiyo horta programka uu yahay jaamacad jaziiro ay soo gudbisay programka intaysan furin oo kan indhaha wasaaradda u yaalla hadda waxaa jira waan u sheegay ayaguna programka intaan la furin waa inaad keentaan wasaaradda la arkaa jaamacadaha kale oo dhanna sidaas ayaan ka codsanaynaa inay yeelaan jaamacadaha ayaga bixiya post graduate-ka keligood jaamacad Soomaaliyeed oo post graduate soo gaartay oo haysata dadka academic ahaa ee post graduate bixin lahaa soo gaartay xeerkaas iyaduna waxay soo gudbinaysaa programkeeda oo qoran si wasaaradda loogu tago wasaaradda dadkii hore maaha emailada awal personal bay ahaayeen hadda emailada oo dhan waxa weeye waa email dawladeed weeyaan sida awgeed adduunyada dhan way kusoo dhiiratay hadda inay emailada soo dirto oo soo weydiiso jaamacadaha insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan jaamacadaha tayadooda garab istaagno oo shir weyn oo soo socda la qabto si loo gaaro in guddigii la sameeyo tayadiina
la gaaro jaamacaduhuna mar dambe aysan ka dhicin arday baa halkaas jooga, arday baa halkaa jooga, arday baa halkaa jooga. marka taas ayaan rajaynaynaa in la iska kaalmaysto. aadaad u mahadsantihiin, waa idinku dheereeyey. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. agaasimaha waan u mahad celinaynaa runtii wuxuuna halkan ka sheegay oo ka cadeeyay inay hadda loo guurayo tayo, waayo wax qaribay waa tayo la'aanta dalkeena baabi'iyey, haddii ahaan lahayd waxbarashada ama xataa cuntada iyo tayada laga baabi'iyey, daawada iyo tayada laga baabi'iyey, wax kasta waxaan u baahan in tayo ahayn. marka waxbarasho aan tayo lahayn, cunto aan tayo lahayn, daawo aan tayo lahayn, dhar aan tayo lahayn la keenaa waddanka. shaati aan soo gataa 2 isbuuc la dhaqaa waa baabaal tuura, midka la keenaa haddana. marka wax walba tayada laga qaaday. marka haddii waxbarashada la tayeeyo insha Allah wax kale hoggaan bay u noqon doontaa waxbarashada, waxa kale way soo raaci doonaan. marka cunto tayo leh baan cuni doonaa, dhar tayo leh baan xiran doonaa, daawo tayo leh baan heli doonaa haddii waxbarasho tayo leh aan helno. marka dadaalka ay wadaan insha Allah waan ugu mahad celinaynaa xagga tayada marka in loo guuro. marka waxaan marnaa gabagabadii iyo gunaanadkaan maraynaa. waxaan halkan kusoo dhaweynayaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Master Xasan Tata oo ku magac dheer yahay. marka tafadhal insha Allah. معلنكيga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجامعة الجزيرة إن آدم أقوم هاد علينا البرنامج كان رنتي ما تسكتوا دبرتي روحان كانوا أقوم هاد علينا إلهي سبحانه وتعالى وهل كان أسبوعين كان رنتي أو لو فوذينا ماشي ما تسووني ما إنه لما عندك كلام كسوشقي يو martida sharafta leh iyo jaamacadaha kale runtii oo maaragtay ka soo qayb galay aad idinka mahad celinayna dhammaantiin. wixii hadal ahaa waxaan u maleynayaa odayaashii igu horreeyay ayaa sheegay. odageeni shirwac iyo Dr. Cabdishakuur oo asagan runtii ka hadlay dhinaca waxbarashada iyo tayada. runtii wax weyn oo hadda kusoo korinayo ma jirto aniga. waxaan leeyahay aadan idinkaga maaragtay mahad celinaynaa waana idinku hambalyeynayna Jazeera in runtii ay barnaamijkan oo kale oo baahi gaar ah u jirto in la keeno waddanka. maxaa yeelay waddanka waa suu doctorka sheegay waa 97 jaamacadood 64 yaa actually xogtooda haynaa oo xogtana waa xog dhan kulli jaamacadu way ka warhayaan. waxaan rabnaa ardadii ka qalin jabisay macal maaragtay facultieska ay hayaan macallimiinta joogta oo professorada ah. يعني waxaan isku daynaa in tayadii si aanan loogu boodin tayo bal horta wixii la haayo in la helo in xogtii la helo ko marka xogtii la helo waad waxay tiraahdaa war la helaa tala leh. marka inaanu ku boodin annaga aan dhihin jaamacadan waa la xiraayaan waa la furaayaan waxbay sameeyeen war horta xogtii jirtay in la helo. waxaa laga yaabaa hadda badankiina inaad hadda ogaateen 97 jaamacadood inay jirto oo 64 ay diiwaan gashan tahay. yani intaas aad ogtiin oo laga yaabo mararka qaarkood in la yiraahdo waddanka jaamacadii waa ka bateen laakiin meeqo wax xog ah oo sax ah aan la haynin. marka hadda way suura gashay in jaamacadii la soo ururiyo. jaamacadahan aadan ugu mahad celinaynaa wada shaqaynta. at the end waxa waaye jaamacaduhu iyo wasaaradda waxbarashada inay isla shaqeeyaan. maxaa waxa loo danaynaa waa ardaygii marka la soo diiwaan geli hal la ogaado maxaad haysaa ma aha control iyo maaragtay in wasaaradda ay wadan leedahay. waxay tahay berri haddii ardaygii banaanka uu kusoo dhaco ama dhibaato ay ku dhacdo wiilaa jaamacad hebelaa ka baxay jaamacaddii ma la weydiinayo waxaa lasoo weydiinaya wasaaraddii ardaygan ma ka baxay jaamacaddii maxaa caddayn karo. berri markuu shahaada idinka soo qaato wuxuu soo maraya intuusan wasaaraddii arrimaha dibadda uusan usii bixinba waxaa le wasaaraddaadii kasoo tasdiiqi ama soo marsii. annaga marka haddaan haynin jaamacaddaas xogteedii haddaan haynin haddaan ardaygaas haynin informationkiisii waan u adkaanaysaa inaan dhahno ama waan haynaa ama jaamacaddii waxaa laga yaabaa ardayga inuu ka baxay laakiin xogtii sida saxda ahaa inaan loo soo gudbin ama loo helin. marka dhibkiina wuxuu ku noqonayaa ardadii. marka taas si aan maaragtay ugu dadaalno yani waxaan isku daynay inaan jaamacadihii iyo wasaaraddii waxbarashada qaybtii maaragtay higher educationka in la isku xiro oo la wada shaqeeyo. yes tayo ma loo baahan yahay waa loo baahan yahay tayo laakiin su maaragtay ustaadka sheegay tayada waxay ka dhalataa tirada. horta tiradii waa la hayaa waa dadaasheen jaamacadihii waa la furay tiradu way badan tahay. maxaa yeelay Kenya waxaan u maleynayaa ilaa 56 jaamacadood inay leedahay u maleynayaa waana 40 milyan waay dadkooda koray u dhaafayaan 40 milyan.
annagana markii statistics la sheegay ilaa iyo 15 milyan ma gaarno jaamacadaheenna waa 97 hadda inta maaragtay uu la sheegayo marka proportionally waan u jeednaa aysan iskeenaynin haddii iskeenayaan waxay ka muuqanaysaa waddankan inay ka muuqatay ahayd oo dad intaasoo jaamacad ka soo baxay oo intaasoo soo saaray oo 97 jaamacadood leh then waa in dhaqaalaheenii technologygii noloshii lifestyle-ka waa inay ka muuqataa taas marka waxaad moodaa inaan weli u baahannahay in weli tayada lasii kordhiyo jaamacadana runtii waa aan aada uga mahad celinaynaa dadaalkooda waxaan kaloo aada maaragtay aan u dhiirigelinaynaa proposalka hadda aan wadno in xataa jaamacadaha laftirkooda la xadido kow labo in la xadido programmeska laftirkooda maxaa yeele programka waddanka uu u baahan yahay in priority-ga la saaro xeebta ugu dheeraan leenahay waddanka agriculture badanaan leenahay xoolaan leenahay markaad tirisid hadda aada fiirisidna yani way yar yihiin yani jaamacadaha bixiyo waxyaabahaas oo marine biology-ga iyo cilmigan badda iyo maaragtay cilmigan oo beeraha way yar yihiin waa laga yaabaa ardada inaysan rabin oo waxyaabahan businesska iyo aada u badan yihiin laakiin annaga ka ahaan soomaali ahaan dhaqaalaheena maanta waxyaabuhu ku tiirsan yahay oo annaga base noo ah waa in waxyaabahaas in xoogga la saaro waddanka siduu u horumari karana waa taas waay marka idinkuna inaad ku dadaashaan dhinacaas annagana aan idinku taageerno wax allaale wixii resource la heli karo markaas sida jaamacadihii aan priority aan siino jaamacaddii waxa waddanka ama dhaqaale ahaan waxa uu waddanka ku tiirsan yahay jaamacaddii samaynayso waa inaan ku dhiirigelinaa wixii supportina aan siinaa marka taasna aadaan ugu dadaalaynaa waxyaabaha kaloo aan samaynay oo jaamacadda idan u baahan in la kala saaro registrationkii hadda waan kala saarnay oo 97 idin sheegayo waa jaamacada waaye waa degree wixii bixiya waaye waxaa jira machadyo fara badan ayagana oo bixiyo diploma uu bixiyo ayagana si gaar aan u saarnay departmentka wuxuu hoostagayaa sana TVET-ka oo vocational trainingka iyo technical educationka qaybtaas oo asina hoostagaya ayagana si gaara loo maaragtay registrationkooda loogu sameeyaa oo tiro gaar ayagana leeyihiin marka wixii hadda waan kala saarnay oo labadaas dhinac oo isgalayeen marka waxaan aada ugu dhiirigelinaynaa dhinacaas iyada laftirkooda jaamacaduhu programyada qaarkood aysan ayaga oo degree ku bixinayn in ama la sameeyo technical school ama in la sameeyo dhinacaas aadaha oo wixii la kala saaro kadibna waxaa imaanaysa marka jaamacadaha laftirkooda in loo kala saaro jaamacado research centers leh oo gaara waddankeen research center u baahan waxyaabo badan oo dhaqaalaheena in baaritaan u baahan in research badan institution la sameeyo u baahan medical maaragtay in research center waa loo baahan yani field kasta oo jiro waa research centers waa u baahan yihiin hadda badanaa research center consultants iyo dadkaasaa sameeya jaamacadaha waa meesha la rabo inay sameeyaan dowladdana hadda waxaan diyaar loo yahay dhinacaas in loo soo jeesto oo aada loo support gareeyo researching oo waddankan maxaa ka qaldan waxaan jira la sheegaya sax miya see waddankeena xataa conflictgan see maaragtay research lagu sameeyo see waddankan nabad lagu soo celiyaa root causeska waxaan muxuu yahay qof kasta fikir oo haystaa Soomaali meel uu jooga dhibaatada qabiilaa keenay may makiin resource la'aan keentay may waxaa keenay wala isku keen diraya waxyaabo badan la sheegaa laakiin waxa la rabaa si cilmiyeysan in loo baaro oo la ogaado maxaa keenay waxaan sidoo kale dhaqaalaha maxaa badda looga faa'iideysanay maxaa dadkii ayagoo baddan dheer dhinaceeda joogo maxay baahi ugu dhimanayaan leen baddiya taalo qofku waxa la abaara dhacday baahi ugu dhintay maxaa ayagoo beerihii jiro ee dadku ugu dhimanayaan baahi maxay magaalooyinkii ugu imaanayaan oo ay ka soo tageen meelahaas يعني إن حواليه بارتان لو سمي research لا سمي عذرنا إن لا سمي إن centers أو medical centers أو specialization أو عذرنا فافر لو سمي إن ده لو سمي أو عذرنا أو cancer كو كان center لا سمي والله باهي دي كرك وحياها أو وطن كسوق الريو آد وبدن وطن كانوا على هذا سنة لو دادي ولا سنة لو دادي صح متى هي سنتاش لو دادي وحياها effects كهذا كينا أو أما عذرنا أو آد وصوبته مكينا يعني إن لا سمي research centers مركز facts هيسو أو research center هذا هيسو مركز هاد عدين كرتا أما point هاد كدودي كرتا عدين كرتا yes والرواي because we have these facts أنا هنا اللي مركز research centers كان هنا كذا we know cost اللي واي وجعلها و private واي لكن still والله باهي وإنه ودنك كفايدة وإنه دتك كفايدة ودنك ولا تفايدة سهم مركز أنا سمي research centers أنا اللي قدر أنا نروح عند ديارنا jaamacadaha diyaarku ah inay sameeyaan research centers inaan taageerno oo wax allaale wixii awoodeen aan ku taageerno daas leeyahay wasaaradda waxa ma haysa iyada mushaarka bixin lahaa waxaan u maleynayaa ways badan oo loo sameyn karaa jiro oo in maaragtay support iyo donors iyo dad kale inta lala hadlo waa la sameyn karaa oo waddankaas wixii imaan lahaa
banaanka yaalaan marka in la keeno waa ku dadaalina hadduu yidhahda marka hadalkeen idinku dheerayn soo gaabinaya jaamacaddaana waxaan leeyahay jaziira barnaamijkan ay samaysay runtii aadan usoo dhaweynaynaa waana barnaamij loo baahan yahay marka jaamacadaha kalena waa ku dhiirigelinaynaa inay post secondary ay keenaan marka aad aa umahadsantihiin jazakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu jazaak allahu khayr jazaak professor xasan aad u mahadsan yahay runtii marka labada agaasimaba waa warkoodii marka lasoo koobo waxa weeye in tayada xoogga la saaro jaamacadaha ay usoo jeestaan tayo nin sheekha waxaa laga sheegay aad diinta islaamka u diraasaynayay muddo dheer ku dhex jiray baranayay ilaa markii dambe konton jil kusii dhawaaday iskaabulna uu ahaa naag ma uusan guursan markii dambe waxaa la sheekhu markaan waad hore badatay maad guursataa marka wuxuu ka dhashay cid lagu tiriyo ama beel lagu tiriyo inay yihiin beelaha ugu tirada badan Soomaaliya uu ka dhashay markaas wuxuu yiri reer hebel tira uma baahno dhahay inaan guursan ilmo dhalmo baan waxay u baahan yihiin tayo dad wax yaqaan inay saasaan marka dad tira waan haysanaa alxamdulillah jaamacad badan la sheegay arday badan la sheegay laakiin waxaan u baahanahay waxa weeye tayo waay tira uma baahin marka jazaakumullahu khayr jazaa halkaas ayaan kusoo afmeerin aan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaa martideena sharafta leh ee maanta nagala soo qayb gashay barnaamijkan qiimaha badan marka intaan qof u yeerin baan aan quraan kusoo khatima insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم waxaan joognaa xilligii aan ugu talagalnay refreshmentiga ama qaadadii inkastoo qaadadii ay naga yara dahday oo aan ay ahayd inaan horay ka cunno oo aan barnaamijka dib ka sameyno maadaama delay badan uu dhacay oo aan cudurdaar hore u gudbinay cudurdaar dhexe aan sameynay cudurdaarna aan kusoo khatimaayo mar kale marka halkaan howl ku yaala ayay qaada noogu diyaarsan tahay marka dabcan meesha hotel ma ahan waa isbitaal waaye waa dareemi karnaa howlasha iska yar yihiin marka waxaan qorsheynay marka hore bahda jaziira maadaama ayaga ay marti loo yahay inay ayaga howlka ku haraan dadka kale inay howlka noo aadaan ay marka hore qada ayaga noo bilaabaan ardayda iyo macallimiinta jaziira ayaga martiya loo yahay inay joogaan meeshooda marka dadka kale insha Allah waxaan leenahay martida kale howlka markii saan loo baxo tooskaas ku yaala ama walidin haga insha Allah balance la yara qadeen wax yaraan qada yaraan noo taal insha Allah qadeenno kadib noo fasaxna insha Allah